shirgudoonkii hore ee golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyay shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada Somaliland gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Somaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed Guleed oo halkaasi ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay inuu 82 xubnood ee golaha wakiilada Somaliland uu oday u yahay isla markaana isku wada doono isagoo sheegay in wada shaqayn buuxda uu la yeelan doono xukuumadda Somaliland waxaana hadaladiisii kamid ahaa ilaahay baynu u mahadnaqaynaa oo mahadda maanta iska leh inuu qabtay doorashadii isku sidkaray nabadgeliyo ina gaarsiiyay doorashadii shirgudoonka oo lahayd hawsheeda iyo caqabadaheeda lahayd oo iyaduna si hufan inoogu dhacday waxaan ilaahay ka rajaynayaa muddaxileedka golahana inay sidaa iyo si ka wanaagsan inoogu socod doonto insha allahu tacaala waxaan halkan jecelahay aan uga mahadnaqo shirgudoonkii hore uu hogaaminayay gudoomiye baasha maxamed faarax iyo xildhibaanadii golaha wakiilada ee waqtigoodu dhammaaday aana u duceeyo oo nidhaahdo nasiib wanaagsan insha allahu tacaala uga mahadnaqo muddadii 16 sannadood ahayd ee qaranka u shaqeeyeen iyo hawlihii mugalahaa iyo baaxadda ay u qabteen qaranka oo aan hubo inay yihiin dad resource ah oo aanu u baahannahay aqoontooda waayo aragnimadooda iyo kartidooda intaba oo aan meel laga maarmi doonin insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaanu xidhow yeelan doono hadday noqoto shirgudoon iyo haddii ay golo weyne noqotoba waxaan kaloo halkan iyagana uga mahadnaqayaa kana hambalyaynayaa xubnihii hore shirgudoonka gudoomiyaha xisbiga wadani iyo saaxiibkay walaalkii Cabdicasiis Maxamed Samaale oo iyaguna halka fadhiya oo aan hubo inay input badan ku lahaayeen wax qabadkii goluhu qabtay muddada dheer ee 16 sannadood ah iyagana waan salaamayaa oo hambalyaynayaa waan u mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa cid kasta oo qayb ka ahayd inay qabsoonto doorashada tan oo ugu horeeyay madaxweynuhu oo runtii ah odaygii dalka oo ay ka mid yihiin golayaasha qaranka oo ka mid yahay komishinka doorashooyinka qaranka oo ay ka mid yihiin bulshaweyntii Somaliland ee muddada badan u soo dhabar adeegtay inay doorashadaas inoo qabsoonto si xor iyo xalaal ay inoogu qabsoonto waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo inaga caawisay doorashadaasi inay qaabka u dhacdo oo ay ka mid yihiin international community-ga oo aan runtii leeyahay waa uga mahadnaqaynaa wixii taakulo iyo gacana ay ku lahaayeen inay qarankan u qabsoonto doorashada muddooyinka badan laga sheekeynayay ee muddo dhaaftay aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa odayaashii saddexda ahaa baasha maxamed faarax aadan xaaji cali iyo salmaan maxamuud aadan ee maalintii dhaweyto ka odeeyay hawshii doorashada shirgudoonka golaha wakiilada oo runtii aan isleeyahay haddii aanay joogin wax badan baa inagaga xumaan lahaa inay sidii wax u dhacaan wax badan baa inaga xumaan lahaa waxaana laga yaabi lahaa alla ma qadarini inay yeelan lahayd ama buuqaal xun ka u samayn lahayd oo ka dabageyn lahayd doorashadii fiicnayd ee quruxda badnayd ee laynagu majeertay ee inoo qabsoontay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa odayaashaas hawshii ay qabteen waxaan u mahadnaqayaa xubnihii golaha wakiilada saaxiibadaya ahaa eena tartansiiyey xubnahaygii ku tartamayey intii codkana siisay aniga iyo saaxiibadayda halkan maanta fadhiya iyo intii naga codaysay oo ahayd xaq dastuuri oo ay leeyihiin in qofku uu ra'yigiisa cabiro ciddii uu u garto inay dan u tahay hogaaminta dalkana uu doorto aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala maanta laga bilaabo waxaan ahay gudoomiyaha golaha wakiilada 82 xubnood ee la doortay oo aan ku jiro oo aan kala qaybsanayn haddii ay ka soo baxeen xisbiga xukuumadda hadday ka soo baxeen labada xisbi mucaarad waxaan rajaynayaa inaan si dhow wada shaqayn doono dhammaantood sida la sheegayna raggu shaqada isku bartaan waxaana laga yaabaa maanta ragga isugu dhowina
inay kala aragti noqdaan ragga isugu fogina ay dadka isugu dhow noqdaan waxaan tusaale soo qaadanaya xukuumadda aan ka tirsanaa markaanu isu imanaynay 20 wasiir iyo wasiir ku-xigeen baanu ahayn dad isiyaqaana umaanu badnayn markii dambe kala xirxaray ahaydoo inaba sibayso aftaqaanay Saad Ali Shiro saaxiibka halkan fadhiya waxaan u malaynayaa isaga Xuseen Axmed Caydiid 5 sanadood iyo 3 bilood baanu laba kursi oo isxiga labadoodaan fadhinay oo labada nin aan isugu dhowlahay marka xagga golaha cid ugu badan gudiyada ugu badan ka qayb qaatana waanu ahayn labadoodaba oo inta badan waxa jiray gudiyada la magacaabo in gaaraba inta badan laga yaabi jiray inay u badato marka labadooda iyo ragay kamid ahaayeen hay'ad cidaan gudiyada kooda qayb qaadan jiray marka in baa isla hesha aragtida halka maanta ragga kala qaloonaya golaha wakiilada in qaybo aad isugu dhawaana ay kala durkaan qaybo aad u kala fogaan ay isu soo dhawaadaan aniguna waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan oday u wada noqon doono dhaxu noqon doono si siman ugu qaybin doono wixii dhax yimaada insha Allah ta'ala duruufahoodana aan ka warhayn doono oo mas'uuliyadda isaaran iyo odaytinimadu ay farayso inaan ka warhayo duruufta ku gadaaman mid kasta oo ay tahay anigoo raacaya xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati insha Allah ta'ala hadii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa berri laga bilaabo oo goluhu furmi doono 8 subaxnimo inaan noqon doono golo mid ah berri doorkiina casuumadii ugu horeysay 28 xildhibaana aan hoteelka guuleed ugu samayn doono si aan u harmanays garayno oo isugu soo dhaweyno xubnihii golaha wakiiladu inay isu yimaadaan istafal galaan waxaan xogeeyay guud halkan ka farayaa inay ka baxdo qaybsanaantii goluhu u fadhiyay oo ma berrita laga bilaabo ay alphabetical order u fadhiyaan xubnaha golaha wakiiladu oo si ay isu dhaxgalaan goluhu oo ay isugu soo dhawaadaan oo ay u noqdaan dad walaalo oo shaqo u taalo wixii ay isku aragti ka noqdaanna isku raaca waxay kula aragti ku noqdaanna ku kala taga ee aanay kala kaxaynin xisbinimo gobolnimo iyo reernimo midna runtii intii hadda ay jirtay doorashada tani waxay bixisay image aad u xun bay ka bixisay golaha waxaan rajaynayaa golaha maanta tegaya markii ay dhacaysay doorashadii 2005 shir gudoonku qaabkii ay isu haysteen iyo qaabkii ay u ilaaliyeen baartalankii xisbinimada u ilaaliyeen inagu maynu ilaalin haddaynu nahay qolada cusub waxaan laga yaabaa inaga saddexda xisbibo isku milbeero qolo saddexda xisbi ka tirsanna xagganay joogtay qolo saddexda xisbi ka tirsanna xaggaasay joogtay umana badnayn waxa la isugu yiri aragti uma badnayn waxaan saaxiibaday leeyahay waa dhaliil inagu taalo maanta inagu taala waxaynu rajaynaynaa inaynu iska dhaqdhaqno iska maydhno oo aynu ku maydhno midnimo golaha dhexdiisa oo aynu ku maydhno inaynu dadkii ina soo doortay ee dhibaatada badan iyo culaysyada badan saaran yihiin aynu u warwarro oo duruufahooda la wadaagno haddii lahayd waxaan halka ka ballan qaadayaa waxaa la soo ay sheegeen baashe iyo odayaashii kale xiriirkii iyaga iyo xukuumadii kala dambeeyey ay la shaqeeyeen ka dhexeeyey waxaan rajaynayaa xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynaha in xiriir fiican oo dhowna dhex mari doono insha allahu tacaala ma ciil qabno si kasta aan loo camaajugreeye rag ciil qaba ma nihin insha allahu tacaala waxaanuna rajaynaynaa inaanu xukuumadda si wanaagsan oo dhow la shaqayn doono si kalena aniga culays badan baa isaaran oo waxaad ugu soo horeyseen maaliyadda saaxiibkay Saad Ali Shire oo niman oo aad saaxiibana u nahay runtii ixtiraam aad u badan mutabaadilina naga dhaxeeyana inuu maanta runtii la igu soo horeysiyo cid ay hor imanaysana iyada laftigeedu culays weyn bay ugu tahay waxaan rajaynayaa balse uun baanu haddii waxa xeeladaysan doonaa oo wada shaqayn doonaa aniga saaxiibka insha Allah tacaala waxaan ku soo gabagabeynayaa odayaasha gudoomiye xogshir gudoonka iyo xubnaha golaha wakiilada halkan fadhiya ee hore insha Allah tacaala waagoode muddo kulli waa mehernogu badanaya goluhu waa golihiini haddii aad golaha timaadaan cidina ribayso soo dhawaada xafiisyada nala fadhiista shaaha nala cabba biyaha nala cabba insha Allah tacaala laakiin xogaa anaga laftigay waxaanu isleenahay ilaa waa niman cusub aan noo xogaa dhaliilihiina iyo waxyaabo badan ayaan la arkin baanu isleenahay iyada laftigeeda haddii aad yar dareentaan jirjirda dareentaana
wax weyn ha u qaadanina insha allahu tacaala aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa Subeer Maxamed Maxamuud Subeer Galeyd wararka iftiin Somali TV Hargeysa